Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa soo koobaynaa filim lagu magacaabo Will Hunted. Muuqaalka maanta wuxuu ku bilaabanayaa wiil 20 jir ah oo ku nool xaafad aad u liidata, laakiinse wuxuu ka shaqeeyaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan ee magaalada lagu magacaabo MIT Massachusetts Institute and Technology. Wiil jaamacadan wuxuu ugu shaqeeyaa qaybta nadaafadda. Waxaan aragnaa asigoo nadiifinaya hoolka jaamacadda. Ilaa maalintaas uu arkay xisaab aad u adag oo ku qoran sabuuradda. Si xiiso leh ayuu markaas u eekay, waxaana qoray professor lagu magacaabo Lamb. Professorka ayaa wuxuu ballan qaaday qof walba uu xaliyo xisaabtaani in uu dhawaan lagu soo daawici doono jaraadyada ka soo baxa dalka, iyo in sidoo kale ixtiraam gooni ah uu ku dhex yeelan doono ardayda. Wiil ayaan aragnaa arrinkaas warka ma warhayo, laakiin wuxuu aad u xiseenayaa arrinkaas inuu xaliyo. Fiidnimadiina meel baar ayuu aaday, wuxuu halkaas kula kulmay saaxiibkiisa James, balse isla markiiba meesha waa uu kasoo tagayaa si uu markaa xisaabta u xaliyo. Wuxuu soo galay guriga musqusha, wuxuuna bilaabay muraayaradda musqusha inuu ku baraatikeeyo. Muddo kadibna waa uu ku guuleystay. Dhammaadka isbuuca ayaa shaqada dib ugu soo noqday, asagoo sagxadda nadiifinaya isla jawaabtii ayuu sabuuradda qoray. Dhowr maalmood kadib, professorka wuxuu arkay xisaabtii in la xaliyey. Waa uu rumaysan waayey, wuxuuna yiri, waa kuma ardayga su-aashan aad u dhib badan u xaliyey sidaan fudud? Ardayda kale ayuu weydiiyey, laakiin hal qof u jawaabta ma laha oo yiri aniga ayaa xaliyey. Isla maalinkaas asigoo la socda asxaabtiisa ayaa wuxuu arkay rag gabar foodeynayaan, isla markaana meesha wuxuu ka dhex aqoonsaday mid hore u dhib jiray xilli guuleed ahaa jiro meesha. Waa uuna istaagay, wuxuuna bilaabay inuu dhaqaaqo wiilka, wuxuuna bilaabay inuu feero. Halkaas dagaal adag ayaa dhex maray, aad ayuuna u dhaawacay. Saaxiibkiis ayaa isku dayay inuu meesha ka kaxeeyo intay booliska imaanin, laakiin nasiib darro arrinkaas aad ayuu uga daahay. Isla markiiba waxaan imaaday boolis, waa ayna xireen. Dhanka kale, professorka ayaa bilaabay in uu lecture ka dhex jeediyo ardayda dhexdooda. Waxa uuna yiri, waxaa idinku jiro qof cajiib ah oo xisaabaadka aad u yaqaana. Qof walba wuxuu isweydiinayay qofka geniuska ahaa oo xaliyay xisaabaadkaasi aad u dhib badan. Professorka aad ayuu ugu xumaaday inuu ka dhex weeyo ardayda qof gacanta taaga. Waxa uuna u qoray xisaab kale oo aad u adag. Waxa uuna ardayda u sheegay, hadda xisaabta aad u fudud u xaliseen inaan aniga asxaabteeda aan xalinaynin in ka badan 2 sano. Dhanka kale, waxaan aragnaa asigoo xabsiga laga soo damintay, laakiin saaxiibkiisa ayaa u sheegay in isbuuc kadib laga rabo maxkamadda. Dib waxa ugu soo noqday jaamacadda, wuxuuna arkay xisaab kale oo fudud oo lagu soo qoray sabuuradda. Midaan aad ayay u fududeed, asigoo meesha taagan ayuu bilaabay inuu isla markaa xaliyo. Professorka iyo arday ayaa soo baxeen, waxayna arkeen qof isla markaa ka dhaqaaqay sabuuradda. Isla markiiba waxay bilaabeen inay su-aal weydiiyaan waxa ka qabanaysay halkan ay dhahaan. Wuxuu bilaabay inuu shaqada iskaga tago, isla markaasna professorka markuu sabuuradda dib ugu soo noqday wuxuu arkay qofka inuu jawaabta saxan oo qoray. Markii haweenka la gaaray, wiil iyo asxaabtiisa baarka ayay dib ugu soo noqdeen. Dhinaca kale, professorka ayaa bilaabay qofkaas aadka u caqli in uu dabagal ku sameeyo. Qolada jaamacadda ayuu weydiiyey wiilka meeshuu ka imaaday iyo hadda meeshuu ku sugan yahay. Isla markiiba gacanta waxay ka saareen ID-kaarkiisa iyo adresska laga tixraaci karo. Dhanka kale, wiil ayaa loogu yeeray dhageysiga maxkamadda. Sidoo kale, professorka ayaa maxkamadda imaaday, wuxuuna aad ula yaabay sida uu kasaayo sharciyada iyo sida uu isku difaacayo. Waxaan u maleysay aad inuu xifdisan yahay dastuurka Mareykanka. Ugu dambeyn, maxkamadda waxay ku xukuntay lacag gaaraysa $50,000. Kadib asigoo xabsi ku jira ayaa waxaa loo sheegay in lasoo booqday. Mid kalena ma ah, waa professorka, isagoona u sheegay garsoore inuu ogolaaday in la sii daayo, laakiin waxa uu soo hordhigay shuruud asbuuc walba uu baraa xisaabta. Midda labaadna waxa ay tahay in isbuucii oo la kulmaa dhakhtar ku fiican qaybta maskaxda ilaa intii la gaarayo intii xorriyadiisa dib uu helayo. Isagana wuu ogolaaday. Kadib xabsiga muddo kooban fasax ayaa laga siiyey, wuxuuna aaday professorka si uu xisaab u xaliyo. Marka professorkana wuxuu bilaabay wiilkan in uu aad ula dhaco, laakiinse dhibka jira waxa uu yahay dadkii loo keenay inay daaweeyaan waxaa u maleysaa inuu asaga khibrad badan yahay. Khabiirka cilmi nafsigu wuxuu arkay in wiilkani aad ugu jeejeesayo cilmigiisa. Isla markiiba meesha waa uu xanaaqay, waa uuna ka tagay. Isla markaa professorka wuxuu u geeyay khabiir kale qaybta maskaxda. Marka asigana wuxuu bilaabay inuu ku maadeysto. Kadib waxaa dhacday in khabiirkii kale meesha uu iskaga tago asagana, laakiin isla markiiba waxa uu xasuustay inuu jiro macallin ka tirsan halkan oo lagu magacaabo Sean. Waa nin dhakhtar ah. Xafiiskiis ayuu ugu soo galay, wuxuuna ku markhaati qaaday meel kafee ah. Markii hore waa uu ka diiday maadaama uu mashquulsan yahay, laakiin ugu dambeyntii waa uu ka ogolaaday. Maalintii koowaad ee xiisadda, wiil waxa uu dhaqmayay mid aan dan ka lahayn xiisadda iyo presentationkaba, isagoo weliba ku jeejeesaya qaybta daaweyntiisa. Wiil waxa uu ka hadlay sawirka derbiga ku dhegan, isagoo weliba nolosha khaaska dhakhtarka faraha la galay. Arrinkaasna waxay keentay dhakhtarka inuu aad u caroodo maadaama xaaskiisa lagu soo hadal qaaday. Waxa uu u sheegay in mar kale haddii xaaskayga afkaada la soo gasho in ku dilayo. Fadhigii koowaad sidaa ayuu ku dhammaaday. Inta kale, wiil waxa uu ku arkay supermarket gabar aad u qurux badan. Kayla waxayna u sheegtay aabeed inay ka dhaxashay lacag aad u fara badan, waxayna u sheegtay inay qorsheynayso inay gasho jaamacadda Stanford. Kadibna waxaa la gaaray kala fadhigii labaad, waxayna dhakhtar kulmeen meel bannaan ah. Kadib wiil ayaa wuxuu bilaabay hadallo sarbeeb ah. Isla markiiba dhakhtarkii ayaa ka joojiyey hadalkiisa, wuxuu u sheegay inuu ka fikiray hadaladii oo maalinkii
dhahayay uuna bilaabaya jaceylkiisa iyo sida uu xaaskiisa isku guursadeen iyo warkaas dhan oo socday. Wiil waa uu iska aamusnaa, waa uu dhegeysanayo oo keliya. macalinkiina ayaa inta ugu badan hadlayay. kala fadhiga labaad waxaa la gaaray Wiil xilliga uu hadli lahaa. markaan xigta waxay ka hadleen xiriirada gabdhaha. macalinka wax weydiiyey waxa uu ka qorsheynayo Skylar, uuna u sheegay inuu qorsheynayo inuu gabadhaas in lasii soconin waqti badan, uuna sheegay in hadda uu ka baqanayo in mustaqbalka wax xun ay dhacaan. darku waxa uu sheegay inaa gabadhaas ay raacdid oo guursad waa xiriirka dhabta ee nolosha. darka wuxuu bilaabaya inuu la wadaago qisada xaaskiisa oo dhowaan ula geeriyooday xanuunka kansarka oo keentay in Wiil aad u dhool cadeeyo. Professorka wuxuu talo ahaan u siiyey in haddii ay rabto in aad sameyso shaqada saxda in xiriirkaada aad u dhawaato. go-aan ayuu qaatay. Skylar ayuuna u tagay. Skylar aad ay ula yaabtay maanta in subaxnimo oo soo booqday. waxayna go-aan ku gaareen in labadooda dibadda ay isku raacaan. waxayna aadeen taranka eeyaha, waxayna bilaabeen isha in ay waqti fiican kusoo wada qaataan. Skylar ayaa Wiil weydiinaysa halka uu kusoo koray asiga, wuxuuna u sheegay inuu Boston ku dhashay asigoona weliba ka been sheegayo qoyskiisa. wuxuuna bilaabay inuu bilaabo sheeko mala abaal ah. wuxuuna u sheegay in 12 wiilal oo ka waaweyn asiga inay la dhasheen. dayana ula yaabtay. wuxuuna u sheegay asiga inuu yahay wiilka 13aad. wuxuuna Skylar u ballan qaaday inuu dhowaan usoo bandhigi doono xiriir qoyskiisa. Skylar waxay ku adeegsatay inuu baro qoyskiisa dhar ah, in isagoo weli waa uu diidan yahay. mar ahaantaasna wuxuu bilaabay inuu baro asxaabtiisa oo Jack ugu horeeyo. haddana waxay bilowday si fiican inay kooxda usoo dhex gasho ay kala baro dhammaantooda. maadka haweenkaas sidaas ayay labadooda meesha ugu soo kala tageen. maalintii xigtay Professor Murray iyo Sean kula kulmay si uu u hubiyo in wiilkan daaweyntiisa meel fiican la gaaray. sidoo kale Professorka waxa uu aad ugu walwalsan yahay in uu qorsheynayo inuu halkaas u taagnaado ee xaaladii sidaas ay ahaato. Sean ayaa wuxuu sheegay in uu qasbaynin maadaama uu qof weyn u yahay. halka dhinaca kale Wiil iyo Skylar ay kulmeen xaafadda. Skylar waxay u sheegtay in uu California u raaco maadaama ay qorsheynayso in Stanford ay gasho, balse asiga hadalkaas waa uu kasoo horjeestay, waa uuna ka cudur daaray uu raaco. Skylarna waa ku adkaysatay iyadoo rabtay in markaas halkaas ay rabto inay tago. markaasna wuxuu bilaabay inuu runta u sheego inuu kusoo koray xarunta agoomaha, sidoo kale inuu yahay qof sabool ah. Skylar waxay ku tiri aniga adiga lacag uma soo raacin ee sidaan oo dhan maxaad ugu samaynaysaa. waxayna ku tiri aniga lacag haddaa haysto maaha dad kale inaa ugu tago lacag la-aantooda, nimadaada ayaa kugu soo raacay. taas oo ay keentay in dhexdooda khilaaf oo ka dhasho. Wiil hadda xakamaynta ayaa ka tagay. wuxuuna bilaabay inuu qayliyo. wuxuuna Skylar u sheegay meesha aad waa adiga. wuxuuna u sheegay markuu yaraa in caruurta asaagiisa ah ay jirdil jireen. Skylar waa ay iska ilmaysay iyadoona isku dayaysa inay markaas asiga ay dejiso. waxayna u qiratay in asiga hadda ay jeceshahay. ugu dambeyntii meesha ayuu iskaga soo tagay. Professor Lee ayuu la kulmay. Professor wuxuu u wacay ninka shaqeeya hay'adda nabadgelyada, isagoo markaas Wiil loo soo bandhigay shaqo dahabi ah oo markaas meesha ka shaqeeyo ay tahay. asiga dalabkaas waa uu diiday, uuna yiri aniga ciidan noqon maayo. marka dhaqtarkii Sean ayuu la kulmay. Sean ayaa weydiiyey maxay shaqada dahabiga sababta aad u diiday. wuxuuna ugu jawaabay arrinkaas aniga farxad badan kuma dareemayo. sidoo kale waxa uu weydiiyey inuu asiga saaxiibo oo leeyahay in kale oodna ay tahay linimo badan uu dareemayo. waxa uu weydiinayaa sabab keentay in jaamacadda reer nadaafadda uu ka dhex shaqeeyo. markii xisaab uu ka shaqeeyay oo la dhuunto, dibna saaxiibtiis ayuu wacaya. waxaan u sheegaya in uu rabo nolol caadi ah inuu ku noolaado. uu taleefanka saas u dhigo. islamarkiiba Skylar ayaa soo wacayso, u sheegaysa in ay go-aan adag ay qaadatay. waxayna u sheegaysaa inay isaga mahda ay sugayso. waxayna ku leedahay aniga adiga waa ku jeclahay. balse asiga wuxuu bilaabay taleefanka inuu dhigo. Skylar nolosheeda ayay hore usii wadatay iyadoo California ay aaday, halka asigana oo Basra oo sii joogay. saaxiibkiisa Jack ayuu markaas asigana la shaqeynayay. waxa ayna joogeen iyagoo ka shaqeynaya shirkad dhisme. dhanka kale Professorka ayaa soo wacaya, wuxuuna u sheegaya inaadan kasoo bixin balanta aadna aadayso jeelka. Jack ayaa saaxiibkiis weydiiyey u qorsheynayo. isagana wuxuu u sheegay inuu wax qorshe aan haynin hadda. asiga aad ayuu hadda fikradaas ugu soo horjeesaday. waxa uu booqday balanta dhakhtarka ee Sean. darka wuxuu u sheegay in hadda loo qorayo warqad oo sheegaya garsooraha inuu hadda asiga uu caafimaad qabo. islamarkaana wuxuu bilaabay informationka siiyey in aabiis ahaan jiray amriga aad u isticmaala. waxa uuna dareemay meesha hadda laga haysto, isagoo ku yiri arrinkan waa inaa had gudubtaa. xasuustaas hore markuu soo xasuusay isnan ayuu xakameyn waayey. waxa uuna bilaabay inuu iska ilmeeyo. maalintaas ka dambeeyey wuxuu isku dayay in noloshiis wax uu ka bedelo. kulankii ugu dambeeyey ayuu Sean la yeeshay. uuna go-aan ku gaaray inuu ka shaqeeyo ka mid ah shirkadaha uu Professorka kula tiriyay inuu ka shaqeeyo. arrinkaas dhakhtarka aad ay ugu farxay, isagoona bilaabay inuu ugu diyeeyay idnimadiina. asxaabtiis ayuu la dabaaldegay, iyagana waxay siiyeen baabuur riya ah. Professor Lambashow ayuu u imaaday inay is soo raaceen si ay cabitaan u wada cabaan, maadaama ay hadda ku guuleysteen mashruucooda. dhanka kale Jed saaxiibkiis ayuu raadinayay, una dareemay in saaxiibkiis uu guuray. agna aad ayuu ugu farxay. wuxuuna gurigiisa sanduuqa boosada fariin ah ayaa loogu reebay. shaqadaasi cid kale ma ah, waa Wiil oo u sheegay uu ka tagay shaqada shirkadda Grey California uu la midoobo gacalisadiisa. Professorka aad ayuu ugu farxay in mustaqbal wanaagsan uu rabo in uu wiilka u yeesho. halkaasna ayuu muuqaal ku dhamaanaya.